maalmihii ugu dambeeyay waxaa aad loo hadalhayay kiiska walaasheen Ikraan Tahliil oo ka tirsaneyd sirdoonka Soomaaliya isla markaana ay muddo kadib dowladda sheegtay inay al-shabaab ay dileen haddana ay iska bariyeeleen ururkaas. waxaa saraakiil ka mid ah hay'adda Ikraan Tahliil ka tirsaneyd ay bixiyeen macluumaad ku saabsan sida ay kiiska al-shabaab iskaga fogeeyeen. dad badan ayaa aaminsan isla markaana warbaahinta ka sheegay inay Ikraan ay dileen shabaab balse ay ku tuumayaan isla hay'adda nabad sugidda uu hogaamiyo Fahad Yaasiin. waxaana xogaha ay sheegayaan inuu sii laba kaclay khilaafka hoggaanka hay'adda nabad sugidda dhexdeeda, gaar ahaan Fahad iyo Kulane iyo Cabdullaahi Dheere. Korneyl Cabdullaahi Dheere oo ku magac dheer Cabdullaahi Dheere ahna taliyaha dabagalka ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay ku daba jiray qaabka loo dilay Ikraan Tahliil, waxaana aad isugu dhaceen Fahad iyo Cabdullaahi Kulane oo ka biyadiidan dabagalka ay wado Master Dheere. Cabdullaahi Dheere ayaa ka agdhow ra'iisul wasaare Roble, waxaana saraakiisha xogta bixiyay ay sheegeen inuu asaga ka dambeeyay jawaabta ay shabaab iskaga fogeeyeen dilka Ikraan Tahliil. khilaafka hoggaanka ee NISA ee lala eegay kiiska culus oo xilligan ka taagan mas'uuliyiinta NISA waxa uu qusgelinayaa xaaladda dalka. xubnaha saraakiisha oo magacyadooda diiday in la baahiyo waxa ay sheegeen in Roble Cabdullaahi Dheere ay ka go'an tahay in meel adag lagu soo haro kiiska wareerka badan ee kooxdii lagu eedeeyay iska fogeeyeen. waxa ay intaas ku dareen in Korneyl Cabdullaahi uu fashilay heshiis hoggaanka kale ee NISA ay doonayeen inay ku sheegtaan shabaab dilka Ikraan Tahliil, waxaana la tilmaamayaa in Cabdullaahi Dheere uu kooxda u sheegay in aanay sheegin karin xataa haddii lacag la siiyo. tani waxay jidka u sii xaraysaa sax ahaanshaha wixii waayaan lagu eedeynayay sirdoonka Soomaaliya ee ahaa inay isku milmeen ayaga iyo ururka al-shabaab. Fahad iyo Farmaajo oo weerinayo Kulanajiis ayaa la kulmaya sida la tilmaamay dagaal ay ku hayaan Korneyl Cabdallah oo muddo badan ku aragtay ra'iisul wasaare Roble. beesha caalamka, mucaaradka Soomaaliya iyo in badan oo bulshada rayidka ayaa kaga fadhiya xukuumadda Roble gaarka dilka Ikraan Tahliil iyo tilaabooyinka uu qaadi doono Master Roble. daawade waad ku maasantahay muuqaalka dhammaad ilaa bilow. haddii aad daawanaysay fadlan daawada waxaan kaa codsanaa haddii aad beejka ku cusub tahay Cabdiraxmaan Xuseen inaad follow tiraado, like-tana ha iloobin si saaxiibo qurux badan oo adoo kale ay noogu soo xirmaan. waad ku maasantahay muuqaalka intii aad daawanaysay. mahadsanid.